إبراهيم وماسنتها ولال أدو ماسنتها هاي دمان ومد الصوماليات مقال كان وجارينا أدبان وسلامية وغورين شرمارك حالة دي ساعدي عن كور بحيو وفي عيا شرمارك وحيقدم بيس ساعة كور أو عن كوبوغدي جيل كوين مقالة الجروة أنا مسؤولين كترسن بونتلان بوقشة أو دارنايد حالة ديسة iyo in aan u soo laab qaboojino runtii shirmarka arintiisu waa arin qadar rabbi ah shil buu galay sida aad wada ogtihiin waxaana ku dhimatay gabar Soomaaliyeed oo reer Garowe ahayd waxaana ku dhaawacmay dad uu isaga kamid ahaa inkastoo isaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا غاية قيمها مدن ميل والبا joogtaan waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada kuna soo biira family-kan keenan official maanta waxaan isla daawan doonaa video soo duubi Sharmaake Cabdinaasir walaalkiis oo Sharma Boy loo yaqaan Sharma Boy oo xaaladiisa aad u sii xuntahay oo bariyahanba dhibaatooyin badan soo gaareen marshal galay mar dad YouTuber ay dhibaatayeen iminkana waxa hadlayo walaalkiis sida u soo maqasheen wuxuu leeyahay Sharmaake xaaladiisu way iska fiican tahay oo iska nabad qaba maadaama oo lagu haysta dhankaas iyo Garowe iminkana waa sii wadan doonaa insha Allah wixii nooga soo jawaabay wixii hadal oo noo soo kordhiyo هذا سوى عصب تاعهم كله كان فرن كسودو كنا صبير فاميلي كان كينان اوفيشال فضلا هاي لون إن سبسكرايب صار الشانل لا نسيب ذاك ولا لها مسلمين تميلوا بجوجان أو عيسى فريرة أو كلاعي تاي أو وسنوينين عادي إن مركب قف شل أو جلا أو يسقى جاري وذي هدي دمشق أي كدعده وهو عادي إن قف كاس مال الأمانة اللي هايو أنت لبض الدنع أما لبض الرير أي كيشينيان هدي أنا وي معه أرنتا دق أرورنتا يولي هاي مقبع لا sida ogsoontihiin Sharmaake Cabdinaasir oo loo yaqaan Sharma Boy wuxuu ahaa fanaanka dad yar Soomaalida mar laba bir laga joogo shil ku galay halkaas iyo magaalada Garowe gaarigaas oo la sheegay inay dad ku dhaawacmeen hal gabarna ay ku nafwaysay sida ogsoontihiin asxaabay maxkamadda ama ciidanka xagga ee Garowe ayaa haysta ninkaas waxaana loogu baahan yahay magdhow ama in la ogaado xaaladiisa markaas ee gaariga sida u gudoomay iyo macnaha sida shilkaas u dhacay allaga wareysan rabaa balse intaas ka hore waxaa jirta in loogu baahan yahay magdhow si aan filahay aniga iminkan walaalkeen ayaa noo sii wadaya insha Allah story-ga meesha aan sii wadayna balay dhageysta aruurinaya Sharmaarka ku saabsan baraha bulshada aad arkaysaan arintaas runtii arin aysan waxba ka jirin weeye oo dad ay ku qaraabanayaan dadkaasna waxaan leeyahay hadii ujeedadiinu ay tahay in aad dad wax tartaan in aad dad u dhaqnataan way fiican tahay dadka Soomaaliyeed waa dad qiimo leh waa dad islaam ah waa dad xiliyada adag isgarab istaaga oo runtii isku hiiliya laakiin meelaha ay أصحابي سيدا أركيسام وحاجرة برا برشيدة بنتيز وإسكا بدن تهي رنتي وحيالا بدن أيا برا برشيدة لوسو بهيا أو بقول run ahaan sida ogsoontihiinba waxaa jira meelaha camal sida oo kaata magashil oo noocaas oo ka dhaca ama ninkan camal si Sharmaake qof kisto wuxuu ku raadsadaa briskiisa sida aragtaan YouTube-ka qof kisto oo soo qaadanaya sidaas awgeed qof kastana wuxuu jecel yahay in uu magaciisa ku qarawdo sidaas awgeed walaalkiis halkan wuxuu noo sheegayaa in ay iska dhaafaan dadka beenti ka sheegaya oo dhahay lacag la ku rahaya Sharma Boy ayaa laga soo deynaya xabsiga iminkan waxaan noo sheegayaa in ay arintaas waxba ka jirin ay tahay arin dad ay ku shaqaysanayaan ama dad ay burburinayaan sida ogsoontihiinba ani xali waxaan u jooday dad oo filim noocaas wada iminkana arinta iyada waa la dhameeyay waa arin aad walaalkiis halkan noo sheegaya ninka ugu dhow oo maanta warkiisa noo soo sheegi karan asaga waaye asxaabay hadii aad aragtaan dad oo ku been abuuranaya lacag waxaas hadirin hadii aad tahay dadka macnaha qofka oo muslimka marka dibadeensan yahay in la kacma qabta way fiican tahay laakiin ma maleynaayo tan waxa waaye mid loo family u dhaxaysa ay kana xaalan doona insha Allah wax intaas ka soo kordho waa nolol soo socodsiin doona insha Allah hadalkeena intaas aan ka sii wadnaa
ka baahan tahay inaad la aadaan bay fiican tahay sida agoonta aabbayaashooda ay dhinteen qaarkood askarta ay dhaleen dadka masaakiinta ah ee qaxootiga ku nool dadka xanuunsan ee xaaladooda aan waddanka waxba looga qaban karin meelahaas runtii ajar adduun iyo aakhiraba aad ka helaysaan inaad la aadaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo oo aan marka saddexaad ku celiyo aan idin xaqiijinaya inaysan waxba ka jirin haddii aad aragtaan qof sida walaalka noo sheegahayaba oo wuxuu beeninayaa arrinta lacagta loo garaayo Sharma Boy in laga soo deeyo xabsiga ama magdhow loogu bixiyo dadka ayaga wuxuu u boorinayaa haddii ay lacagtaas guraan in ay ku saacideeyaan dadka maskiinaha iyo meelaha jooga runtii asxaabay waxaan rabay in intaas in la soo wadaago iyo arrinta aan in la soo wadaagi rabo muhiimadda waxaa waaye in ay jiraan lacag loo gurayo baraha bulshada macnaha si magdhow loogu bixiyo Sharma Boy meel boo joogtaan waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada halka igala socdaan wayaan keenan official mar dambe in aan ku kulmi doono video kale oo xiiso leh waxaan idinka tagahayaa intaas iyo nabadgelyo